السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالin wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kas dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta hindiga ee channelkeena waxaanu soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeyay maanta aflaamta hindiga Akshay Kumar iyo Ajay Devgan oo film wada goorma ugu dambeysay sorry afanshi oo aan war badan kaaga hayo oo ku saabsan filimka ka iyo Akshay Kumar oo haddaba soo bandhigay muuqaalka Ajay Devgan iyo Ranveer Singh ay filimka kaga soo muuqan doonaan wali waxaan soo qaadan doonaa Hrithik Roshan wala waa isku dadaalay Allah Hrithik Roshan waa isku dadaalay sida filimka War uu nin adag ugu jilo oo uu murqiisa xoog badan noo tusay wuxuu u soo maray inuu jirkiisa caydka badnaa uu yareeyay waxaan ka sheekayn doonaa ninka la yiraahdo Hrithik Roshan iyo filimka War ka hor sidoo jirkiisa ahaa iyo War kadib sidoo jirkiisu yahay War wuxuu ku jiray nin xoog badan waxaanu ka sheekayn doonaa arrinka iyo sidoo kale Nana Patekar oo filimada dib ugu soo laabanaya sidoo kale Amitabh Bachchan oo dad dhibaataysan u deeq gaarsiiyay Kareena Kapoor kuma faraxsana ninkeeda Saif Alqaan filimka soo aadan sidoo wuxuu yahay darteed yaani muuqaalkiisa kuma faraxsana lagu leeyahay iyo maalinta dhalashada Reeqa oo aan soo qaadan doona iyo sidoo kale filimka soo aadan Ranbir oo sawiro hordhac laga sii helay iyo warar kale xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa maanta wararka ugu waaweyn aflaamta diga asxaabay hadda channel ku cusubtiin noo subscribe garay si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee aflaamta diga Hrithik Roshan waa kan sawirkan bal fiiri filimka War intaan la jirin jirka ninka la yiraahdo Hrithik Roshan sidaas buu iska ahaa wuxuu ahaa jir bilaasigiis baag ah calool iska taala meesha buu ahaa waa sawirka geeska jira bal sawirka murqaha badan waa filimka War markuu jilay kadib wayaan yaani waxa lagu leeyahay Hrithik Roshan ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay muuqaal uu kaga sheekeynayo sidii dhibta badneed ay ugu qaadatay inuu jirkiisa u bedelo midkan murqaha weyn ee sigis baagyada leh sidii ugu dhib badnaatay isaga waxa uu ku tusaya actorka inaan wax fudud u ahayn isaga in film iska soo jiro wallahi film iska soo jiro wax yar ma ahan kullay actorku wuxuu marayaa waxyaabo badan ayuu marayaa tababaro badan buu qaadanayaa jirkiisa ayuu marba si u bedelayaa mar uu iscaayilinayaa mar uu iscaataysiinayaa bal fiir hadda Hrithik Roshan wuxuu ku tusayaa filimka War intaanu bilaaban jiristiis intaanu bilaaban almiint si jirkiisa ahaa iyo War markuu intaanu bilaabin يعني سيدا laga rabay filimka inuu ku jilo inuu murqiisa ka dhigo markii si filimka ugu jilana waa ka sidoo ka dhiga filimka War ka hor iyo War kadib War ka hor weeyaan sawirka uu caylan yahay bilaastigis baag uu yahay qaabka aanu leen jirkiisa laakiin bal fiiris jirkiisa hada sidoo wada murqaha yahay يعني qaabka lagu jilay filimka War ba wuxuu ahaa nin xoog weyn oo military ah yani askari ba filimka ugu jilay asagoo howlgalo badan fulinaya marka ninka la yiraahdo Hrithik Roshan ba taageerayaashiisa tusiyay inuu wax badan u soo maray filimka War in uu soo jiro waliba waxa uu actorka u cadeeyay inta aanu la bilaabin duubista filimka War September 2018 ayaa War duubistiisa la bilaabay waxaan la sii deeyay dhawaan baa la sii deeyay 2019 gabadeeda baa la sii deeyay War wuxuu actorku barkashaaca ka qaaday oo muuqaal uu soo gali bartiisa yaani Instagram ku soo gali uu ku cadeynaya isba bardhig laba sawir muuqaalka uu hadda filimka War ku jiray iyo muuqaalka inta aan War jilin tusaale ahaan waxa uu muuqaalkiisu ka hadlayaa September 2018 markuu bilaabayo duubista filimka War markuu doonay inuu bilaabo sidoo jirkiisa ahaa waa kaas marka caylan yahay laakiin markii War uu duubistiisa bilaabay tababaradii uu qaatay baa umida taa isaga dhigay baa lagu leeyahay waxaan actorka midaan u keentay mataqaana filimkii War ka horeeyay wuxuu ahaa Super Sodon wuxuu actor ku jiray mid caata miirana waa kii filimkii macalinka ku jiray yaani ardayda uu waxbaray wuxuu ahaa nin raaf ah oo caataysan buu ahaa marka taaba keentay inay ku adkaato inuu jirkiisa hadda uu ka dhigo midkan muqaha weyn maxay la filimkan ka horeeyay mid caato ku jilay laakiin filimka War waa ka soo isaga shaqeey marka waa kaayo ninku dadaal badan buu maray ka War Master Kabir baa loogu yeeray filimka War Kabirka aad ku aragteen filimka War waa ninkan arkaysaan laakiin inta aanu la jilin filimka kan ee War sidan buu ninka kan u ahaa maalintuu bilaabay duubista iyo sawirka iska qaaday yaa sidoo ahaa duubista filimka intaanu bilaaban ee tababarkii lagu jiray buu mataqaana sawirka iska qaaday haddana waa ka sidoo jirkiisa u bedel wad arkaysaan marka sawirku wuxuu ka hadlayaa shalay iyo maanta filimka War markuu ninka kan duubay kadib weeyaan War intuu jilayay iyo War si jirkiisa u diyaariyay weeyaan marka murqaha weyn uu haysto filimka haduu keenay War waxa uu ku jiray nin murqa weyn oo diyaarsan oo dagaalyahan ah markaas geeska uu jirana waa markii uu bilaabi rabay filimkan War duubistiisa weeyaan marka actorka ayaa wuxuu ku tusayaa markuu saas jirkiisa u cayliyay yahay oo six back xataa lahayn tababar badan uu sameeyo biro badan uu qaadayo almiinta badan uu sameeyo dhibaato badan uu maray sidii jirkiisa ugu dhig u soo saari lahaa murqaha kan ugu dambeeytina waa ka soo saaray marka ogaada Hrithik wuxuu idin leeyahay filimka War dib badan baan ka soo maray uu leeyahay jirkayga inaan sidan u yahay aan ka dhigo waxa uu ahaa markii hore sidaa buu waxa uu leeyahay
wariya ayaantan biraha la qaadqaadayeen wax kasta ay ka dhigayaan ka war ilaahay amarkii ilmiya xataa macaylaanka ilmiya caylaan jina ilmiya caatada xataa wada caylooyin bir markay qaad bilaabeen waa kayo heretic saan buu ku noqday filimka kan war markaasna sidaa buu ahaa intaan war jilin oo wuxuu ahaa nin iska buuran oo yani iska culus jir qaab lahayd buu ahaa hay waxyaabaha kale in ugu weyn aflaamta intiga waxaa kamid ahaa Akshay Kumar ayaa taageerayaashiisa la wadaagay sawirka aktarada filimku soo aadanay Surya Vanshi muuqaaladii ku lahan doona ee Ajay Devgan iyo Ranveer Singh wakaayad arkaysaan aktarkii filimkii Singham iyo Zimba wuxuu ku leeyahay Akshay Kumar wuxuu ku leeyahay waa kan uu ku leeyahay saaxiibadeeda filimada Singham iyo Singham waxa keenay Ajay Zimbana waxa keenay ninka la yiraahdo Ranveer Singh marka filimka kan hadda uu soo wado aktarka weyn Akshay Kumar ee uu Rohit Shetty soo saaraha ka yahay ee Surya Vanshi lagu magacaabo maanta Ajay ninka la yiraahdo Akshay Kumar babartii soo galiyay sawirka labada aktar ee filimkan muuqaalka yar ku lahaanaya Ajay Devgan iyo Ranveer Singh filimkan ayagu mu wada jilayaan filimkan atooraha iskale aktar koowaad waxa weeyaan Akshay Kumar asagan askari ku jilay Akshay Kumar filimkan uu action badan ayuu ku sameeyay filimka kan ninka kan Akshay Kumar la yiraahdo filimka markuu waxa lagu leeyahay labadan aktar Ajay Devgan iyo Ranveer Singh muuqaal yar bis ku lahaanayaan yani qayb yar maarta tooro filimka kisare laga arkay kadib la waynayo kisbay ku leeyihiin marka muuqaal yar bay kaleeyeen filimka waa kaayay sida filimka taageerayaashiisa u sugaan ay isugu diyaariyaan maanta Akshay Kumar wuxuu soo galiyay bartiisa sawirka labada aktar ee filimka la jilaya Ajay Devgan iyo Ranveer Singh anagu ku sii sheegayna in labadan aktar filimka badan ay sii jiri dooneen laakiin qayb yar muuqaal ay ku jiri doonaan kadibna filimka ninkan uu sii wadan doono filimka kanu waa filim la sugayno soo baxo 27 bisha Maarso 2020 kaba lagu wadaa inuu soo baxo marka filimka kan waa Surya Vanshi hadaba aktarka weyn Akshay Kumar ayaa maanta shaaciyay sawirada labada aktar ee filimka la jilaya ee muuqaalka yar ku lahaanaya Ajay Devgan iyo Ranveer Singh wallahi Akshay Kumar bariyahan film badan buu iska daba keenaya Akshay Kumar ma mar loo helayahay maalinta film buu geenaya ya Akshay waana waalaya Ajay Devgan Akshay Kumar finis markay goorma kugu dambeysay ma taqaana muddo dheer ba kugu dambeysay waa kan Ajay wuxuu cumaamadaya saaxiibkiis Akshay Kumar wuxuu leeyahay wariyahay filim kale Amir baa leeyahay wariyahay muuqaal yar xataa iga soo muuqano micnaa wariyahay Ajayow waa Ranveer Singh xoogayr filimka leeyahay wuxuu leeyahay inta kalena hawshiida kala qabsanaya marka filimka muuqaal yar bay kala hanayaan filimka kan ee soo baxaya Maarso 2020 waa ka hadaba aktarku cadeeyay labada nin ee filimka kala qayb galaya muuqaaladu iyagoo wada askari kolba waa ka isagoo dhar askari wata iyagoo laba dhar askari wata 27 Maarso 2020 filimkan soo baxaya aktarka lagu magacaabo Nana Patekar Soomaalidu wuxuu yaqaanaa Yashwanti ayaa warku sheegay inuu jiri doono filimka Jayam Ravi filimka ka oo filim la wada sugayo waxay warku leeyihiin ninka kan ayaa bedeli doona booska Rana Dugbati waa ninkii jilayay filimkii Bahubali Ladarka ka ahaye maadaama ninka filimka kan lagu wada inuu jiro laakiin uu ka doorbiday filimka Akshay Kumar ee Hustle 4 ayaa ninkan lagu bedelay Nana Patekar yani Nana Patekar wuxuu jiri lahaa filimka Akshay Kumar hadda uu soo wado Hustle 4 Nana Patekar waxa filimka lagu diiday in lagu haysto kiiska gabar inuu ma taqaana farxumeeyay oo atrisha ahayd oo leeyahay Tanushre Dutta xilli ay filimka jilaysay buu gacan dhaaf iyo taataabasho gooni la aaday taas oo keentay gabadha inay hadda kiiska soo saarto iyo cadeyso in hadda koor Yashwanti uu isku dayay inuu jirkeeda taataabto marka maadaama lagu haysto kiiskaas ayaa Akshay Kumar waxa filimkiisa House of 4 oo ninkan ku jir lahaa laga saaray ninkan sidaas daraadii ninkan shaqo helay lagu leeyahay Nana Patekar wuxuu helay filimka hadda soo socda ee Jayam Ravi filimkii ugu dambeeyay ninkan uu keenay xataa wuxuu ahaa Nana Patekar filimkii Rajnaad uu waday ee Kala marka waxa leeyahay maadaama filimka Akshay Kumar laga soo raacday House of 4 aktarka kan weyn ee Nana Patekar lagu haysto kiiskaas filimka uu helay lagu leeyahay waana filimka hadda aan ku sheegay ee lagu magacaabo Jayam Ravi waxa kale ugu miisanayna maanta iyo aflaamta Hindiga aktarka caanka ee Amitabh Bachchan ayaa deeq gaarsiiba lagu leeyahay 51 laaq gaaraysa lacago dhan 51 laaq oo lacagta Hindida ayaa wuxuu gaarsiiba lagu leeyahay dadkii waxyeelada ku soo gaartay lagu leeyahay meelo kamid ah Hindiya gaar ahaan magaalada Bihar oo meelo badan oo ka tirsan ay daadad dadka ku dhufteen oo dhibaato ay gaarsiiyeen hadaba Bihar dadka dhibaatada ku soo gaartay uu gaarsiiba lagu leeyahay lacag dhan 51 laaq si uu ugu gargaaro dhan kalena Saif Ali Khan ayaa cadeeyay xaaskiisa Kareena Kapoor inaysan ku farxin yani aynan ku qancin qaabku xun ee filimka ku jiray wajigiisa uu waalay filimka Laal Kabtaan hadda soo wada aktarka lagu magacaabo Saif Ali Khan ayaa waxa uu ku jirayaa filim isagu iswaalayo wajigiisa uu bedelay wuxuu leeyahay xaaskeeda Kareena Kapoor uu leeyahay xaaskiisa Kareena Kapoor kuma lama dhacsana buu leeyahay qaabka aan filimka ku jirayo
ma ahan buu leeyahay nooceeda filimka kan buu leeyahay yani wejigiisa waa uu bedelay wuxuu u muuqdaa nin gar weyn oo sixiroola baad malaynaysaa marka wuxuu leeyahay xaaskeygu kareena filimkan aad ulama dhacin bay leedahay qaabkan ku jirayo waxaa aad loogu hambaleynayaa dhalashada atriishadii caanka ahayd ee reeqaha ayaa toddobaadka loo wada hambaleynayaa waxay hadda noqotay 66 sano jir bay noqotay oo waa mid kamid ah atriishooyinka ugu weyn Hindiya soo marayo 150 filim ka badan bay keentay waxaana filmadii keentay kamid ahaa filmo ay qamid qaybka ayeen qubisuurad iyo silsila iyo duanjani iyo muqaddar iyo filmo badan oo weyn waxaa inta badan la sheegay actorkii Bollywoodka iska shukaansaday inuu ahaa actorkii caanka Amitabh Bachchan oo jecel xad dhaaf ay u qaaday ilaa maanta jeceshahay marka atriishada taa da'da weynaatay maanta 66 jir bay noqotay baa lagu leeyahay dhan kale sawiro hordhac baa laga leeyahay duwista filimka Shamshera waxaana filimkan u jilaya actorka caanka ah ee Ranbir Kapoor ninkan filmadiisa caadi ma ahan filmadiisa ninkan abaalmarin baa lagu siiyay xataa actor sanadka baa loogu doortaa kan wiilkii Risho waa nin qatar badan ninkan filmada ku cusub yahay laakiin haddana waa weyn waa 2010 agtiisa la ninka kanu haddana saas oo abaalmarin buu haystaa haddaba Ranbir Kapoor ayaa bilaa lagu leeyahay duwista filimkiisa Shamshera waxaana filimkan u muuqdaa nin aan la aqoonsan karinba maadaama uu gar weyn badan uu ku jirayo haddaba waxaa la sheegayaa filimkan xitaa ay qayb ka yihiin actorka caanka Sanjay Dutt sidoo kale waxaa la sheegayaa filimkan uu soo bixi doono 31 July 2020 inta baan ku gabagabeynaynaa maanta asxaabay wararka ugu waaweynaa aflaamta Hindiga sida ay nabadgelyo